مسؤولين كترسن maamulka degmada Caabudwaaq ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu soo bandhigayay buug loogu magac daray dulmiga Daahsoon oo qoray Asmaa Sheekh Maxamed sida warkaasi inoogu hayo wariye Mahad Bashiir xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay laguna soo bandhigayay buug la magacbaxay dulmiga Daahsoon kaas oo ay qoday Asmaa Sheekh Axmed Cabdalla oo ah qoraada yar ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa lagu soo bandhigay Hotel Salaama ee degmada Caabudwaaq xafladan oo si qurux badan loo soo camiray ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug maamulka degmada aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo waliba marti sharaf kale ugu horreyn waxa xalfadan idaah furay kana hadlay madaxa arrimaha bulshada ee degmada Caabudwaaq Muuse Axmed Maxamed Muuse Inji asagoo dhiirigelin u sameeyay Asmaa oo ahayd qoraaga buugaani saad arkaysaan caawayto xafladatan oo nagu talagalay inaan ku soo dhaweyno buuga ay qortay gabadha dhalinyarada ee aqoon-yahanka waxaan hadda u ammaan gaar u soo celinayaa rag fara badan oo dhalinyaro ah oo ku garab istaagay qoraaga buugaas marka waxaan leeyahay oon sii ballan qaadaynaa ka maamul ahaan intaan maamulka joogno cid kasta oo isku dayda in ay qoraal samayso nooc kasta ha noqdo ama program kasta oo fikrad leh oo mujtamaca kan looga faa'iideynayo oo wax u tarahaya inaan ku garab Asmaa Sheekh Axmed oo ahayd qoraaga buugga caawa ayaa goobta ka soo jeedisay qiso dhaba oo ayada qabsatay taas oo qayb ka ahayd buugga ay soo bandhigaysay caawa waxaana hal mar jawiga goobtu uu isku bedelay murugo runtii waxaan ku dhiiraday ama maskaxdeyda aan iga soo maaxatay inaan qoro buugga dulmiga Daahsoon buuggan waxaan ka qoray qiso aniga igu dhacday runtii dhibaatadaas aniga igu dhacday waxay ahayd dhibaato inaad maqashaan ma ahane inaan arkinin qof ay ku dhacday aniga waxa la bixi rabay xubnahayga kaliyahaygii iyo beerkaygii wadnahayga baa la bixi rabay waxay qaateen dad ajaanib ah waliba anoo dalkayga hooyo joogo oo dalkayga dhex joogo waliba waxa liigu haystay dadkayga dalkayga hooyo baa liigu haystay xataa anigoo nool baa tacsideeda la dhigay waliba anigoo jooga dalkayga hooyo oo joogo meelaan raad iyo cirib aan dhigana la waayay marka buuga waxa ka qoray dulmigaas aniga marka sometimes igu dhacayo marka igu dhacay iyo gabdho Soomaaliyeed oo isla markaan iyo wiil Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaali loo maleeyo in tahriibka ku dhinteen loona maleeyo markii qofka wax uu la waayo oo dhinto oo mirqdiisa la waayo waxa dhahnaa tahriib buu ku dhintay wuu tahriibay baduhu ku dhintay baa dhahnaa laakiin sirta naga qarsoon waxay tahay suuq madow inuu Soomaaliya uu ka furan yahay lana ogeyn qofka soo dhadhanshay waa aniga qofka tagay waa aniga qofka ka soo badbaaday waa aniga qofka dhibaatada soo maray oo hadda buugaas ka qorayna waa aniga runtii maalmaha waxay ahaayeen maalmo marka nolosheeda ku ahaa cariiri oo sometimes marka soo xasuusto iyo marka buug qorayba saameyn weyn igu reebtay aniga qaar ka mid ah aqoon-yahanadii iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan buuggan saameynta ku yeeshay dareenkooda oo ay qodhay Asmaa ee caawa goobtaani lagu soo bandhigayay waxaan kaloo runtii aad murugta iyo oohintii iyo waxyaalihii badan ee meeshan ka soo jeedisay la qaybsanaynaa walaalasheen Asmaa Axmed caawa waxaan bandhigiisa aan joognaa aan markhaati ka nahay buugga dulmiga Daahsoon soo bandhigistiisii buuggaas oo ay qortay qoraa Asmaa Sheekh Axmed Cabdalla maxay 2016 kibeen Asmaa qisadii ka sheekaynaysa markay ku dhacday oo Asmaa la qaatay aniga walaalkay baa ii soo sheegay runtii aad iyo aad baa uga xumaaday waa ilmeeyay waa ka naxay haddii ahaan dadkan dadka xamar meelaha suuga ama koofra runtii caaw jaanta wada doosan lahayd laakiin wada cawadaas marka cawadaagaasa kasbay inaan xafladan anoo ilmeeyna aan sii fadhino qayb badan ama ka mid ah waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii soo agaasintay buuggan iyo Asmaa oo ku dhiiratay inay qorto qisadii xanuunka badneed ee nooga sheekaysay ee dabcan ku dhacday anigu waa markii labaad oo goob joog u ahay
maalinkii asmaa lala tegay dadkii koowaad loo soo sheegay baan ku jiray. marka koowaad waxaan rabaa inaan maartay uga tacsiyeyno walaasheen dhibaatada soo gaartay. marka labaadna ay noo noqoto waxaan wax ka baranno oo ogaano cilmigaas. waxaa hadalka soo gabagabeeyay xildhibaan Deeqa Cabdi Cilmi oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug iyo waliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Galmudug Mahad Xasan Maxamed ayagoona ugu hambaliyay Asma buugeeda cusub ogana tacsiyay qisadii xumeed ee ay soo madhay ee buugani ay ka qodhay. xalfadan way ka duwan tahay xalfadihii hore. runtii waa xalfad rag iyo dumar bacaawa oohin ama maxaan ku dhahay tacalool xumo ama maxaan ku dhahay to waxyaalaha shucuurta naga muuqato waa u jeedaan in kastoo hadda gabdhuhu ay si aad u ooyeen xoogaa raggu waa naga calool adag yahay hadee. qof dhalinyaro ah oo wax ku bartay degmadan oo dhacdo ku dhacday ka sokow inuu hindisaba inuu qoro oo ka mid noqdo qorayaasha Soomaaliyeed. waxaan leenahay hambalyo gacmo furan ku soo dhawow hididiilahaagana hore u socon leenahay Asmo. dhacdo Asmo ku dhacday dhacdo xanuun badan weeyaan laakiin dhacdo ka dambeynaysa tii maanta dhacda aad teedan oo taariikhdeeda haysta baad igala sii xanuun badatay. markii xalfadu soo gabagabowday waxaa bilowday guddoonsiinta buugaagta mas'uuliyiintii ka soo qayb galaysay xalfadani iyo waliba dhalinyaradii iibsanaysay.